أولاً وحن mahad ballaaran u sheegay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabadgelyo noo keenay caasimadii qaranka Soomaaliyeed hooyadii bulshada Soomaaliyeed Muqdisho waxaan mahad ballaaran sidoo kale u jeedinayaa mas'uuliyiinta heer qaran ee maanta nagu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde oo ugu horeeyo wasiirkeena arrimaha gudaha mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh iyo wasiirro iyo xildhibaano fara badan oo ka tirsan golayaasha federaalka ee Soomaaliyeed dhammaantiin waxaan leeyahay mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweyntiina iyo qaabilaadiina iyo niyad furaanta aad noo muujiseen aad baan idinku bogaadinayaa waad mahadsantihiin waxaanu ka nimid Laascaanood oo dal Soomaaliyeeda dad Soomaaliyeedna ay joogaan hortabinta aynu isku darsanno ilaalinta midnimada ku dara hortabinta lagu daro haddii Ilaahay ka dhigay qaranimada Soomaaliyeed iyo in laga hortago cadawga Soomaaliyeed doonaya inuu kala gooyo waxaanu nimid Muqdisho markii labaad waxaan halkan u imi anigu safarro shaqo ah oo gaarsiisan ilaa iyo waddanka dibaddiisa haddii aan Muqdisho imidna Ilaahay idankii madaxda qaranka waxaan rajeynayaa in kulamo la qaato waana salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda iyo guud ahaan Soomaaliyeedba waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.